yahuud iyo nasaara ka raali noqon mayso ilaa diinkooda raacdo wax ka sokeeya kaaga raali noqonaya u seexseexo sidaa rabtid ma aragtay iskugu jilci sidaa doonta hadallada ugu dhig ka raali noqon maayaan ilaa diinkooda raacdo hatta tattabi'a millatahu wadawada muslimiinta wadan kamida ee hadda kor aad wuxuu ugu dadaalay sidoo uga mid noqon lahaa ama ugu beeri lahaa reer galbeed oo daris la shuruudo badan loo dhigay marka waxay isku dayaan shuruudihi inay fuliyaan shuruudahana in badan oo kamida waa in diinka laga dhaqawaa islaamnimada in laga tirtiro wa ficlan wax badan oo aad u badan oo islaamnimadii iyo ku dhaqankeedii way ka fogaadeen ayagoo ku qancinaya ama ku raali gelinaya qolooyinkaas ay rabaan inay ku biiraan waagidama marka qof kamida mas'uuliyiintooda wuxuu yiri wax walba warbaahintu ka leeyahay wax walba waan uga tagnay buu yiri si aan ayaga ugu biirno oo islaamnimadeena in badan aan ka tagnay wax noo soo haraba waa yar yihiin buu markaas waxaana lagu haystaa buu yiri dhiigga idinkaga jirtaa islaamnimada dhiigga ka saara yani wax kala nooma harin way waa sida Ilaahay sheegay marka walan ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم آية لكن لا إكراه في الدين بعض علماء السوء أي وحي أسوقاتا حرية الأديان وحيكم العابة حرية الأديان diimuhu inay xor yihiin oo waxay leeyihiin qofka lagu qasbi maayo inuu soo islaam maxaa yeelay Allah wuxuu leeyahay la ikraha fi diin macnaheedu waxa way marka qofku wuxuu doono noqon karaa way Soomaa qofku diinku doono qaadan karaa warkaas war khatar waay waxa la yiraahdo xurriyatul adyan ma jiraan qofkana xor uma aha wuxuu doono inuu sameeyo bal waxa waajib ku ah qof walba inuu soo islaam inna diina 'inda Allahi al-islam دين كلمة جرت الله أكتي سبحانه وتعالى ما جرت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نبينا وحده صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قفك الدين كيس بدل الدلا موصلين حروا هذا الدين كيس بدل وصدونوا يري كرا آياتنا واحد دليل وما سبنا قلاداس هاي الآياتان ما جرتوا أهل العلم وكبير قفك وحربوا إنه السماين كرا أي آيات دليل وتا كتب التفاسير تا أقواشها سيشيغا إما آيات إن منسوختها أما إن لا يراد أهل الكتاب كجزية بحنا ومسلمين تكوها صنور لكن حرية الأديان وحجر معه هي إن لا يراد جميع الكتب والسماوية ومعنى هذا يا كتاب كلا ربع لقادن كرا كتبتي هوري وحاب بدلي كتاب كان قرآن كا وكتاب سيطرين يا كتبتي هورا وعي كتبتي هورا كويلي قرآن كريمka uu sheegay quraanka nooga filan wixii kale oo kutubtii hore ku yeelay laakiin quraanka uu bedelay ama cagsiga quraanka ahna quraanka nasakho waa mansuukh oo kutub mansuukha oo quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku bedelay baada bi'thati Muhammad sallallahu alayhi wasallam majiro qof khiyaar u leh diinta islaamka diina ahayn waxa markii nabi Muhammad la soo diray kadib sallallahu alayhi wasallam ama ha sheegto yahuudiya ama ha sheegto nasraaniya ama quraha sheegto diinan ahayn islaamnimo ma jirto wixii islaamnimada ka soo haray adyaan ah baada bi'thati nabi sallallahu alayhi wasallam wa adyaan وانا ديما الهي وسن اقبلين كان الزولي ما يوقف كاسينو يا كافر او هدو دينتا يهود هايستو اما دينتا نصارى نبي محمد وصر رمين صلى الله عليه وسلم من غنى يا مسلم سواء كافر وقال هدو سدا كل انت من اهل النار اهل النار كمديا نبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار امام مقول يهودي اما النصراني كدبنا اوسن الرومين الا اهل النار كمن قريه النبي عليه الصلاه والسلام والرسول الى جميع ثقلين لما الله صادق marka qolo gooniya oo dhihi karta anaga ka madax banaan diinu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ama la leeyahay diinkan islaam la yiraahdo kana diin kala waayo labadaba laba diimood waay midkii la raba la qaadan kara wax jira markaas asaaba kufriga gaalnimo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyar mu'min ya mu'minat uma sugnaanin buu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala inay khiyaar yeeshaan hadii Allah iyo rasuulay wax xukumaan waxa waajiba inay كان سمان حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع اسكدا عيد كله نبي الله موسى هدو جوجي لها صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام هدو جوجي لها وما واسع نقطتين ما نقبناناتين إلا أن إنه يراعمويا حواجبك هدو موسى سوغاري لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه النبي محمد راعه وأنا بلنك الله سبحانه وتعالى ولقلي رسول أنبياء وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا يا الله ورسوشي أنبياء إلهي بلن كلا قالوا أدو يماد الرسول رمينا يوحى أكتينا أو كتبت اللي نصدر معنا واد رمينا يسامبل وأنا أقر قاريسا بلن كاسو إلهي أنبياء لك أنبياء نوحي إلهي إله وانقرني وأنا قادنا عهد قاسي بلن كا هذا يمرك النبي محمد سو قاري لها صلى الله عليه وسلم كل قد وحي راعي لها رسولك عليه الصلاة والسلام وذكر وما فرنات
qaateen rusushaasi ambiyadaas oo aan ahayn inay nabi maxamed raacaan calayhi salaatu wasalaam kada qayrkood waxyaabaha marka dadka qaar ay wadwadaan oo ah waxa lagu leeyahay taqaarubul adyaan diimo la isku soo dhaweynayo ama at-tasaamuh bayna al-adyaan diimaha inay isa saamaxaan ama wuxdatul adyaan diimuhu inay midoobaan ama xurriyatul adyaan kulligood alfaad baatila kulligood waa wax ay wada liita xaq iyo baatil iskuma soo dhawaa karaan kufri iyo islaamna iskuma soo dhawaa karaan waxa soo dhan waxa loo sameeynaya waa irdaan lil kaafiriin waa raali gelin gaalada la raali gelinayo kaana raali noqon maayaan ilaa diinkooda raacdo waxa sida noo sheegay allahi ayaga abuuray annagana na abuuray wa huwa a'lamu bihaalihim wa bihalina walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum yahud iyo nasara ka raali noqon mayso ilaa diinkooda wax ka sokeeya kaaga raali noqonayaan u seexseexo sidaa rabtid ma aragtay isku jilci sidaa doonta hadallada ugu dhig ka raali noqon maayaan ilaa diinkooda hatta tattabi'a millatahu wadawada muslimiinta wadan kamida ee hadda kor aad wuxuu ugu dadaalay sidoo uga mid noqon lahaa ama ugu beeri lahaa reer galbeed oo daris la shuruudo badan loo dhigay marka waxay isku dayaan shuruudihi inay fuliyaan shuruudahana in badan oo kamida waa in diinka laga dhaqawaa islaamnimadii in laga tirtiro waa ficlan wax badan oo aad u badan oo islaamnimadii iyo ku dhaqankeedii ah way ka fogaadeen ayagoo ku qancinaya ama ku raali gelinaya qolooyinkaas ay rabaan inay ku biiraan waagidama marka qof kamid ah mas'uuliintooda wuxuu yiri wax walba warbaahintu ka leeyahay wax walba waan uga tagnay buu yiri si aan ayaga ugu biirno oo islaamnimadeena in badan aan ka tagnay wax noo soo haraba waa yariin buu markaas waxaana lagu haystaa buu yiri dhiiga idin kaga jirtaa islaamnimada dhiiga ka saara yani wax kala nooma harin way waa sida Ilaahay sheegay marka ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولو مجرد الاسم هذا ان بدن ودان مسلمين كميدا اسلامنimada magaca uga haray dhaqanku aad u liita dana ma cadalika magacaas laftirkiisa aysan u ogoleen hatta tattabi'a millatahum ila diinkooda raacdo oo yahuudi noqoto ama nasraani noqoto ama majuusi noqoto ama mulhid aan noqoto wax diina aan lahayn